kooxda Manchester ayaa habeen waxaan ku qaadatay garoonkeeda Old Trafford markii ay ku soo dhaweysay kulan ka tirsan horyaalka Premier League kooxda Tottenham. kooxda Manchester United ayaa goolka koowaad bilowday iyadoo shabaqada soo taabtay xidigeeda lagu magacaabo Farid. goolka labaad ee ciyaarta waxaa u dhaliyay kooxda Manchester United xidigeeda Bruno Fernandes, sidaas ayay 2-0 uga badisay kooxda Manchester United kooxda Tottenham. kooxda Liverpool ayaa habeen waxaan ku qaadatay garoonkeeda Anfield markii ay ku soo dhaweysay kooxda West Ham. kooxda Liverpool ayaa goolka ee ku badisay waxaa shabaqada u soo taabsiyay xidigooda Darwin Núñez. kooxda Liverpool ayaa sidaas 1-0 uga badisay kooxda West Ham. xidiga Virgil van Dijk ayaa noqday 70 kulan uu ku ciyaaray garoonkiisa Anfield wax guuldaro ah aan la kulmin. kooxda Chelsea ayaa kooxda Brentford la gashay barbaro eber ah, halka kooxda Real Madrid ayadana guul weyn ka gaartay kooxda LG kulan ka tirsan horyaalka Spain. kooxda Real ayaa goolasha ka kala heshay xidigaheeda Valverde iyo xidiga lagu magacaabo Karim Benzema oo ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or iyo xidiga lagu magacaabo Asensio. sidaas ayay hogaanka horyaalka Spain ku dheereysatay kooxda Real Madrid.